way tusaale ahaan balse dadku inoo fahmaan imika anigu page ma ku weydiiyaa quraanka kamid ah xisaabta ay qaacida ma isticmaalaysaa waanu isticmaali karaa way waxaan ku oranayaa page-ka quraanka ee 4-8aad halku ka bilaabma waxaad odhanaysaa page-ka 4-8 imika garan maayo meel uu ka bilaabmado laakiin xisaabtii baanu adeegsanayaa waxaad odhanaysaa waa 4-8 midigta waxa inoo taala 4 dhinaca bidixdana 8 afarta midigta taala meel baad inoo dhigaysaa yacni labada waalid ama labada lamaane kala taga ay kala tagaan ayaa keeni kala derbi jiifnimada waxa kale oo ka waramaya balwada oo kale sida la iskaga dayn karo aad iskaga daaweyn kartid waxaan xusuustaa waagi 2014 shirkad ayaan raacay kadibna hees ayay nagu shidaan waan xusuustaa kadibna heestii naga bakhtay baan ku yiri wuu diiday inuu bakhtiyo darawalkii markii uu diiday ayaa waxaan ku yiri war naga bakhti wuu diiday haddana ilaahay ayaan u bariyay rabbi markaan u bariyay waxaan idhi ilaahu u naga bakhtiyaa hadduu naga bakhtin waayna ilaahu adigu ka bakhti baan idhi dabeeta waxa dhacday markii sidaas oo kale aan ilaahay ugu bariyay uu bakhtiyey horta dee inuu isagu bakhtiyeen kala warkama hayo horta meeshu way bakhtiday heestii iyo muusigii iyo wixii marta ma shidin dabeetana dhalinyar baa la socotay waxay ku yidhaahdeen war ma sheekhaad maqlaysaa maxaad nooga bakhtiinaysaa bay ku yidhaahdeen markaas ayaa kii darawalka ah gaadhiga waday wuxuu yidhi waar maan bakhtinina fiiskiiba uu iga gubtay buu yidhi waxaa ka mid a waxyaalaha laga baran karo inaan nolosha meel uun la taagnaane meel sare la gaadhi karo oo uu qofku tiigsan karo meel sare oo aanu meel uun iska taagnaan karin waa ta kale qofku waa inaanu naftiisa ka dhaadhicin inaanu balwadda iska dayn karayn kolley bandhigii buuggee jigjiga si fiican ayaa looga soo qayb galay oo waanan soo bandhigay ilaahay ma haddii si fiican baa looga soo qayb galay oo kolley dee wixii la iibsanayana waa la iibsaday la soo deg abka shirkadda Super adigoo kala soo degaya Play Store-ka iyo App Store-ka waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamij iyo waraysi oo marti noogu yahay Sheekh Abu Cabbaas oo ka mid ah culimada dhalinyarada ee reer Somaliland waa sheekh lagu tilmaamo sheekha mucjisada noloshiisa waxa uu ka soo bilaabay meel aad u hooseysa iyo sidoo kale inuu waqtiyadii hore ee caruurnimo uu markaasi soo ahaa markaasi derbi chief gaar ahaan aad loogu xasuusto magaalada Burco iyadoo waagaasi la oran jiray Gabyaaye haddaba maraaxil kala duwan oo uu soo maray Sheekh Abu Cabbaas waxa uu noqday xaafid sidoo kale si gaar ah ugu takhasusay cilmiga dhaxalka waxa uu caan ku yahay xisaabaad uu ku soo saaro markaasi Quraanka Kariimka iyadoo suurad kasta iyo aayad kasta oo markaasi aad sheegto lambarkeedaba oo markaasi xisaab isaga u gaar ah uu ku soo saaray tusaale ahaan haddii aad raacdo aayadda 144aad ee Quraanka Kariimka ah halka ay ku jirto iyo suuradda ay ku jirto iyo waliba aayadda tahayba isagu intuu xisaabaad gaar ah adeegsado markaasi uu aqoontiisa ku soo saarayo dhawaan sheekhu sidoo kale waxa uu soo bandhigay buug cajiib oo markaasi uu kaga warramay noloshiisa kaasi oo si weyn ugu soo bandhigay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waa nolol ka soo bilaabatay meel hoose haddana taagan meeshii ugu sareysay iyadoo markaasi salka ku haysa khayr iyo wanaag Sheekh Abu Cabbaas ku soo dhaweeyay MTV bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay subxaanahu wa ta'ala ya marka koowaad mahad leh marka xigta waa aad mahadsantihiin bahda MMTV gaar ahaan saaxiibkay Maxamed Andar waa aad mahadsanto waan dhawahay saaxiib Sheekh Abu Cabbaas ka soo sheekeeyay dhawaan baad buug weyn soo bandhigtay bal buug horta naga waran buuggu horta waxaa la yidhaahdaa magaciisa derbi jiif ilaa daaci baa la yidhaahdaa derbi jiif ilaa daaci magaca ku qoran ayaana ka turjumaya waxyaalaha uu ka warramayo oo dhan haddii aynu wax yaroo kooban ka tilmaano buuggu waxa uu ka warramayaa derbi jiifnimada maxaa keena maxaase lagu daaweyn karaa kala tag oo kale ayaa keeno kala tagga sidee lagu daaweyn karaa maxaa keeni kara maxaa arrimahaas yacni labada waalid ama labada lamaane kala taga ay kala tagaan ayaa keeni kala derbi jiifnimada waxa kale oo ka warramaya balwada oo kale sida la iskaga dayn karo aad iskaga daaweyn kartid iyo xisaabaadka Quraanka Kariimka lagu soo saaro arrimahaas oo dhan uu ka warramaya ay buu ka warramaya way maadaama laga dhadhansanayaba buuga derbi jiif ilaa daaci kulli noloshaadu musalka ku haya waqtigii hore ee noloshii derbi jiifnimo ilaa imka tahay daaci xaafid quraan ah culumtii kale shariicadana markaasi haya bal ka waran labada farqi waa farqi aad iyo aad u weyn
ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ciduu doono siiya rabbina ayaa mahad iska leh subxaanahu watacaala kolleyda waa la garanayaa qof kastoo caqli leh farqiga u dhexeeya wuu fahmi karaa waa cirka iyo dhulku intay isu jiraan in leeg way marka la yidhaahdo derbi jiif inta badan dadka maankooda waxaa kusoo dhacaya balwado kala duwan daraagis dil nabaro jugo waxaa kusoo dhacaya dee waa ilmo yar oo meel dee cidla ah cidna aan ku tiirsanayn noloshiisa suuqa isagu daberaya nolosha adiguna soo martay haa waan soo maray sidaan dhowr jeer horeba aynu ka warannay waan soo maray nolosha noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala ayaana iga saaray way balbalwadihii ugu darnaa waad isticmaali jirta maxaa ka mid ahaa kolley ilaahay kaa daweeyey haa waxyaalaha uu ilaahay iga daweeyey ee aan ka towbad keenay waa hore waxaa ka mid ahaa waxaan loo yaqaano xabagta oo kale iyo sigaarka oo kale iyo arrimahaasa ka mid ahaa ayaa ka mid ahaa way casharada laga baran karaa maxay tahay waxaa ka mida waxyaalaha laga baran karo inaan nolosha meelun la taagnaane meel sare la gaari karo oo uu qofku tiigsan karo meel sare oo aanu meelun iska taagnaan karin waa ta kale qofku waa inaanu naftiisa ka dhaadhicin inaanu balwadda iska dayn karayn dad badan waxay aaminsan yihiin ilmuhu markuu yar yahay ee balwado kala duwan naftiisu la qabsato inaanu isbedeli karin qofku ma isaga naftiisa bedeli karaa mise haddii uu garab istaag helo ayuu isbedeli karaa qofku haddii uu kolleyba go-aansado inuu isagu waxaan iska daayo ay si dhaba uga soo go'do ilaahayna subxaanahu watacaala uu kaalmaysto waxa uu iska dayn karaa oo nolol sare uu gaari karaa ilmaha yar laftigiisu hadduu go-aansado inuu waxaa iska daayo oo isaga niyadiisa ay ka soo go'do uu helona dee cid ku waaniso ku tidhaaho waxani waa wax xun waxani waa wax sidaa iyo sidaasa ee iska daayo inuu markaaba iska daayo ayaa dhici karta ilaahay baana subxaanahu watacaala hidaayadda haya way wadigan buug way soo bandhigay inta badan markaa noloshaadii hore iyo taariikhahaagii lagu noqdo waxaa ku jirta wax la aaminaada oo dadyowgii reerba waxay sheegaan waqtiyada adoo xaaladaa ku jira dee derbijiifnimada haddana in aada lagu aamini jiray nolosha aaminaadaadii waktigaas buugga ma ku qoranta haa way ku qoranta uu ka waramayaa in wax laygu aamini jiray lay amaahin jiray adigu taariikhdaydiio kooban ayaa ku qoran bal dadkayna daawan ha arkaane waktigaa dee adoo xaalada adag ku jirta si lagu aamini jiray kolley dee siday dhaqankayga iyo dabeecadaydu ay ahayd ayaa laga bartay oo qofka haddii aan wax ka amaahdo wixiisaa waan u keeni jiray waktigan ku idhaahdo waan kuu keenayaa ee aan kula ballamo ayaan ku keeni jiray markaa sidaa awgeed ayaa laygu aaminay ilaahay baana quluubta dadka geliya aaminaada siday dadku aamini jireen waxay igu aamini jireen inay mararka qaar waxay dhiibtaan ho waxaa noo soo yiibi waxaa noogu soo yiibi iyo inay waxay amaahiyaan haddaan ku idhaahdo waxay amaahiya dadka ku aamini jiray yahaayeen dadka suuqa kolley inta badan reer burco oo kale haa suuqa ayaad markaa bal waa intaynan buugga iyo faahfaahinihiisa aynan sheekhaynaan gelin bal noloshaadii hore iyo suuqii burco iyo sariibadihii bal daqiiqad noogu soo koob kolley suuqii burcee hore dee berigii hore dadku sidan umay badnayno kolleyba waa laga yaraa oo inta badanna dee dumar ayaa suuqa wax ku iibin jiray oo dadka ayaan kolley isnaqaanay iminka kolley waa la waaweynaado dee dadkaas iminka weli inay sii garanayaan waa laga yaabaa markaa suuqaas ayuun baan iska joogi jirnan arrimaha waxyaalaha xunxun aan iskaga isticmaali jirnay hase ahaatee dadku waktiga saacadda hadday tahay iyo hadday tahay taariikhda anigun bay weydiin jireen maanta bishu waa imisa iminka saacaddu intee bay maraysaa anigoon wax saacadana xidhnayn oo waxaan idhaahda iyo amaahiyo waa lay amaahin jiray hadday wax doonayaan in loo soo iibiyo way ii dhiiban jireen oo waxaa noo soo qabo way igu aamini jireen waxa la weydiin jiray waktiga iyo bisha saacadna maad qaadan jirin saad ku garan jirteen kolley xagga taariikhda dee maskaxdaydun bay ku jirta waan la socon jiray maalinimo intay marayso saacaddana waxaan ku garan jiray cadceedda oo maalinimo unbaa dee kolley suuqana la joogaayo habeennimo lama joogo markaa maalintii cadceedun baan fiirin jiro aan eegi jiray kadibna waan garan jiray inta ay marayso iminka arrintaa mucjisada ma hayso haddaad cadceed eegto waktigii ma garataa kolley waan ku dhadhaweeyaase laakiin dee sidii waagaa hore uma garto waayo iminka saacadun baa la barto dee waxaana lala qabsaday arrimahan sheekh abu cabaas bal waktigaa de saacadaha iyo wadigaa dee intaad cirka eegta garan jiray haddana wadigan xisaab gaara samaystay oo dee culimada kale aad kaga duwan tahay oo xisaabaad qur-aanka kusoo saaraysaa ilaa hadda cilmigaa dad garanaya ma la kulantay
cilmiga xisaabaadka iyo arrintaa ku saabsan kulli cid garanaysa lama kulmin laakiin dee waa laga yaabaa inay jiraan dad badan oo yaqaana hase ahaatee anigu lama kulmin oo maan arkin xisaabtana ilaahay subxaanahu watacaala ayuunbaa demaanka igu soo riday oo sida loo xisaabinayo inta ka fikiray ayaan kadibna soo saaray weli intaad xisaabisay ma khaldantay kulli waad bani aadan baa too wad khaldami kartaa hase ahaatee qaacidadaas iyadu may khaldamin qaacidada la raacayo kulli marar horena dad wad ka warrantay oo Sheekh Abu Cabaas iyo xisaabtiisa waa dadku waa daawadeen laakiin dad badan oo kale oo aan daawana way jiraan balimka tusaalahaan sidaad quraanka ugu soo saari kartaa qaacido waxa lagu soo saari karaa waa beejajka iyo safxadaha ama bugaga waxa loo yaqaano ayaa xisaab lagu soo saari karaa ee aayadaha kulli in la xifdiyo oo iyagu weeyaan tusaale ahaan waxa lagu weydiiyay iminka waxa lagu yiriba beejka ama safxadda 144 maxay ka bilaabantaa iminka garan maayo meel ay tahayba inaan xisaabiyo mooyaane way tusaale ahaan balse dadku inoo fahmaan iminka anigu beej ma ku weydiiyaa quraanka kamid ah xisaabta iyo qaacida ma isticmaalaysaa waanu isticmaali karaa way waxaan ku oranayaa beejka quraanka ee 4-8aad halku ka bilaabmaa waxaad odhanaysaa beejka 4-8 iminka garan maayo meel uu ka bilaabmado laakiin xisaabtii baanu adeegsanayaa waxaad odhanaysaa waa 4-8 midigta waxaa inoo taalla 4 dhinaca bidixdana 8 afarta midigta taalla meel baad inoo dhigaysaa oo waxaa la odhanayaa waa la haysanaya meel baa la dhiganaya maankuma lagu haynaya 8 baa soo hadhay 8 ma kisiba mise waa dhaban oo laba miyay u qaybsantaa mise uma qaybsanto waa dhaban way u qaybsantaa waa dhaban laba kalaad ku darsanaysaa 10 waa 10 kaasaad laba u qaybinaysaa waa 5 jiskii shanaad ba markaa noqonaya jiski shanaad shanta kuu soo baxday waa jiskii waana jiskii shanaad jiska shanaad waana xisbigiisii hore jis kasta laba xisbi ayuu ka kooban yahay marka waa xisbigii koowaad ee hore xisbigii hore maadaama uu yahay kadib waan soo xisaabinayaa waxaan odhanayaa jiska shanaad waxa uu ka bilaabmadaa walmuxsanaatu marka kaa ugu horeeya labaad odhanaysaa kaa safxadda ugu horeysa jiska laba markaan idhaahdo kaa ku xigana 3 kaa ku xigana 4 kaa ku xigana 5 marka waxa ay noqonayaa oo bogaasi ka bilaabmaya walladina bogi ka bilaabmaya ayuu noqonayaa suuratu an-nisaa ayuu horta noqonayaa suuratu an-nisaa ayaa uu noqonayaa bogeeda wuxuu noqonayaa marka bog ahaan loo xisaabiyo wuxuu noqonayaa ilaa boga 9aad buu noqonayaa meelaha ayuu noqonayaa laakiin xisaabta afartii meesha dhiganay iyadoo ma baahin miya afartii waa anigan xisaabiye idhi bogaas ugu horeeya jiska laba ayaad ka soo bilaabaysaa laba markaad ka soo bilowdid cafwan waxaad odhanaysaa markii hore mabaan xisaabinay laakiin waan halkaas uma ku tuuray waxaad odhanaysaa labo ayaad odhanaysaa boga ugu horeeya kan ku xigana 3 baad dhahaysaa ay wallahu yuriidu kan ku xigana 4 baad dhahaysaa ar-rijaalu qawwaamuuna ayuu noqonaya markaa oo aayadda 34aad suuratu an-nisaa halka ay ka bilaabanto ayuu noqonayaa xisaabtan sidaasay ku soo baxday ma sha Allah tabarakallah kulli dad badan oo xaafidul quraana way ku daawanayaan waxaan rajaynayaa in dad badan cilmiga ay ka faa'iideysan doonaan buugaynu soo noqono balka warra bandhigi buugii jigjiga kulli bandhigi buugii jigjiga si fiican ayaa looga soo qayb galay oo waanan soo bandhigay ilaahay mahadii si fiican baa looga soo qayb galay oo kulli de wixii la iibsanayna waa la iibsaday marka buuga kulli waa dadkii iibsaday akhriyayna waxay ugu yiraahdeen waanu yaabnay waxyaalaha ku qoran sida iyagu igu yiraahdeen waanu la yaabnay bay dhaheen maadaama buugaaga demo xujisooyin ay ku jiraan oo nolol sare iyo nolol hoose iyo dabaqad intuba ay markaas laga dhaxarkayo fariimo uu xambaarsan yahay wax badanna laga dheefsanayo ma jigjiga oo kale ugu tala gashay mise magaalooyinka kale ee Soomaalida sida Hargeysa oo kaleena waad ku soo bandhigaysaa qorshaha kugu jirta qorshaha kulli way igu jirtaa inaan ku soo bandhigo magaalada Hargeysa oo kale iyo magaalooyinka kale Soomaaliyeedba waxaan u maleynayaa magaalo kasta in laga soo codsan doono oo ay Soomaalidu degto hase ahaatee markaas waxa weeye marka loo helo cid maal gelisa marka la helo ayaan sidaa samaynaynaa insha Allah oo soo bandhigaysaa oo aan soo bandhigay marka maalgelin aan u helo kulli sharikadaha oo kale ama ganacsatooyinka oo kale qaarkood waan u bandhigay inkastaanan dee kuwii lahaa u tegin laakiin kuwa hoose oo dee xafiisyada u fadhiya ayaanu tego anagu ma maalgelina ayay igu yidhaahdeen sida Telesom oo kale Dar es Salaam oo kale Dahabshiil oo kale
mararaan buugga tusay oo aan u tegay baa jirtay. waay waxaad iga warantaa goormaad qortay buugga intuu kuu qaatay inaad qorto? ilaa sanad baan qorayay tafatirkiisa, qoraalkiisa, hubintiisa, arrimahaas oo dhan adigu ilaa sanad way igu qaadatay. marka noloshaadii iyo aqoonta aad baratay iyo mucjisaadkaaga intaasunbaad tafatirisaad hubinaysaad qoraysid? haa, waxyaalahaas ayay ku saabsanayd. hase ahaatee waxaa dheer markan arrin ka waramoba maxaa laga qaadan karaa arrintaas, oo mararka qaarkood aayado qur-aan ayaan soo qaadanaya, aayadaasaa sidaa iyo sidaa tilmaamaysa oo aan micnaheediina soomaali ku sheegayo, oo kolley de way kala duwan yihiin buug qof qur-aankii garanaya oo micnihiisina wax ka fahansan uu qoray iyo buug qof aan qur-aanba aqoonay uu qoray, de kolley way kala duwanaanaysaa. waayahay waxa ugu weynaad sida buuggaaga waa laga dheefayaa muxuu yahay? wuxuu yahay hal arin inaanu qofku nolol keliyaata uun joogin ee uu nolol intuu meel ka bilaabo uu meel sare gaari karo inuu qofku aamino. taas ayaa ugu weyn ee laga faa'iidaya oo laga faa'iidaya. sheekh Abu Cabaas safaro badan baa lagu yaqaanay, mar inuu Burco joogo, mar Berbera joogo, mar Hargeysa joogo, mar Jigjiga joogo. hadda fadhigiisu waa halkee? hadda magaalada Hargeysa weeyaan fadhigaygu. fadhigaagu? way sheekh Abu Cabaas wadigaa sheegay oo deemka fadhigaagu waa Hargeysa. markaa safaradii badnaa ee marba aad meel tegi jirtay iyaguma istaageen? may kolley weli sidii ayaan safaradii u galaa oo kolley dee safaro waa aan galgalaa oo waagii horena waa aniga ka sheekan jiray safaradu siday igu badnaayeen. waxaa hase ahaatee waagii hore dee kolley istaana iyo waxbaa dee laga raaci jiray baabuurta. iminkase laakiin shirkadihii ayaaba isku batay oo la raacaa. shirkadaha waxa aan xusuustaa ilaa 2013 14 meelahaasay soo baxeen baan filayaa. hase ahaatee waxa aan aada ugu dadaalo horta shirkadaha inaan raaco, gaar ahaana kuwa mas-uuliyiinta ayaan heesaha iyo waxyaalaha muusiga aan dadka ku dhex shidin. waxaan xusuustaa waagii 2014 shirkad ayaan raacay, kadibna hees ayay nagu shideen waan xusuustaa, kadibna heestii naga baktay baan ku idhi. wuu diiday inuu baktiyo darawalkii. markii uu diiday ayaa waxaan ku idhi waar naga bakti. wuu diiday. haddana ilaahay ayaan u bariyey, rabbi markaan u bariyey waxaan idhi ilaahu u naga baktiyaa, hadduu naga baktin waayena ilaahu adigu ka bakti baan idhi. dabeeta waxa dhacday markii saasoo kale aan ilaahay ugu bariyey wuu baktiyey. horta dee inuu isagu baktiyey in kale warkamahayo, horta meeshu way baktiday, heestii iyo muusigii iyo wixii. martaba ma shidmin. dabeetana dhalinyar baa la socotay, waxay ku yidhahdeen waar ma sheekhaad maqlaysaa, maxaad nooga baktiinaysaa bay ku yidhaahdeen. markaas ayaa kii darawalkaa gaadhiga waday wuxuu yidhi waar maan baktinin, fiiskiiba uu iga gubtay buu yidhi. kadibna markii dambe xataa waxaan xusuustaa shirkadda waxba magaceedii sheegi maaye way kacday. markii dambe mabay sii shaqaynba shirkaddii, markay xoogaa sii jirtay way kacday oo iminka ma jirto. weli sugaantaadii waayadii hore eed caanka ku ahayd ma jirtaa? haa, weli dee kolley waa igu soo dhacdhacda marka farxad oo kaliya, marka aan cid ka xanaaqoo kaliya waa laga yaabaa in markaaba igu soo dhacdo aan tuuro. marad midaad cadho tirisa iyo midaad farxad tirisa labadu way jiraan? haa, kaa sahal oo kale farxad baa iga soo tuurtay. midaad cadho kaa soo turtay ma jirtaa? kolley haa way jiraan kuwa cadho iga soo turtay. may hadda ma xusuustay, sidaas maan ugu sii dayn jiro dee maba sii hayn jirin. waayo waqtigii aad yarayd nolosha darbi jiifnimaada ku jirtay soomaad gebi jirin? haa, inta badan, laakiin waxaan tirin jiray waxaan maqlay ayaan tirin jiray. maxaa ka mid ahaa waxyaabaha caanka ku ahayd? maxaa ka mid ahaa waxyaalaha aan caanka ku ahaa ee aan tirin jiray? de waxaa ka mid ahaa gabayadii arooska oo kaliya laga tirin jiray ee ay odhan jireen baabuurka guuxa ma tago gu-iyo jiilaale, baabuur ma soo raacin cagtan boodhka soo daraya, jidka waxaan kusoo jiray 10 dharaaroode, waxaan soo boqoloba haddan beydkii soo galay. kii nooca ahaa baan xasuustay. ayaa tirin jirtay waqtiga oo imika tusaale ahaan marka suuq mad ka tirin jirtay? haa, dadkaas midaad is odhan karto haddii aad imika gabay tiriso dadkii waagaa ku aqaanay ku xasuusanayaan ma jirtaa ood caan ku ahayd? haa, kolley dee kii aan odhan jiray nin aabihii dayriyo daayacan ahay waxaan dib jira hadaba mar baan doolar heliyo daar cagahan gelin. kii nooca ahaa caan buu ahaa miyaa kaas? haa, kaasay dadkuba yaqaanay. marna ducu ahaa, haa, marna cabashu ahaa. ducadii marka waa la aqbalay? waa la aqbalay. way taagan tahay. waxaan daayac ahaadaba waxaan dib jira hadaba mar baan doolar heliyo daar cagaha gelin. marka imika doolarkii u yimid daarteena de maasha Allah wadiga aabbahayo qoys kale. maasha Allah waa duco la aqbalay. bal aaminaadii waqtiga aad yarayd hadda ma jirtaa? haa, way jirtaa. meel sare inaan
gaari doono weli way jirtaa. inta badan qofka markuu arrimaha aaminaad uu aada ugu sareeyo maadaama deedoo xagga hoose nolol hoose jooga aada lagu aamini jiray haddana sheekh weyno daaciyaa tahay dee aaminaadaaduna dadkaa dee la aaminaya inaad ka mid tahay arrimaha samafalka ayaa inta badan dadka la aamino ay ku dhiiridaan adigu sheekh xagga samafalka iyo arrimaha weli niyadda ma kaaga soo dhacday inaad markaasi gasho arrinta kolley ku saabsan samafalkoo dadka in wax laga ururiyo kadibna dadka baahan oo kale loo qaybiyo arrintaasi way ku soo dhacday kolley maankayga oo hase ahaatee waxaa ii diiday dee markaa dadkii ku tidhaahdid kharash qofkaasa u baahan qofkaasa wax doonaya hala soo caawiyo dee dadkii un inaad ku caawisid bay noqonaysaa. hase ahaatee adiguna dee shaqadaadii waad gabaysaa oo dee waxaad shaqo aad haysid ma jirto tan mooyaane dee tanna lacagtan laguu soo diro ma isticmaali kartid ila waa tu lagugu aaminay halka ma isticmaali kartid. marka waxaad leedahay shaqooyinka kalaan hayo ayaa dee culays ku noqonaysaa. haa oo dee shaqooyinka kale ayay meesha ka saaraysaa oo haddii aan odhan lahaa dee aniguna waxaasan ka isticmaalaya waxaana dadkan ku caawinayaan ceeb bay dee igu tababaryo dad bay markaa noqonaysaa. waay sheekh Abu Cabaas bandhiga xigee buugaaga goormo ayaad niyadda ku haysaa? kolley weli waqti ima qorshaysna hase ahaatee marka ugu horeysa ee la helo cid samafal ah cid samafalayaal ah oo maal gelisa oo ka qayb qaadata ayaan isleeyahay aad soo bandhigtid insha allah. way cilmiga dhaxalka de waa cilmi aad si gaar ah markaasi u baratay bal cilmiga dhaxalka war. cilmiga dhaxalku kolley waa cilmi ka mida culumta shareecada oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka u soo dejiyey oo aayado qur-aan uu kaga waramay weeyaan. nabigeeni maxamed ahana calayhi salaatu wasalaam axaadiis kaga ansaxday waana cilmi ka mida fiqiga oo kale baab ka mida adigu weeyaan oo fiqigunba ku guda jiraa. hase ahaatee inta badan dadku waxay iska dhaadhiciyaan cilmigaa lama fahmayo. anigu intan cilmi baranayo cilmiga dhaxalka weli mid ka fudud ma arag. ilaahay mahdi maxaa kuu fududeeyey? ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa aan baryey ayaa kolliba iigu fududaaday iyo dadaalaan dadaalo dee kolley intii taagtayda ahayd aan akhriyey oo aan isiri fahan ayaan ku fahmay. ilaahay mahadi. cilmiga dhaxalku miyuu ka adagay culumta kale? may aniga sida ila muuqato cilmi ka fududiba mabaan aragba aan bartay. inta badan muranada dadka dhexdooda ka dhacaya qoysaska iyo bulshada dhaxalka ka mid ah weli arrimaad ka yaabto arrimaha dhaxalka ku soo martay? arrimaha dhaxalka wax ku saabsan oo kolley soo maray way jiraan. dad adigu su-aale iga weydiiyey oo igu yidhi ciddaasaa dhaxal la siiyey ciddaana dhaxal lama siina bal ka waran waxyaalahaas oo kale waan arkay. oo marka wada xalisaa uun dee kolley su-aalaha waan uga jawaabaa uun laakiin uma qaybiyo dee noo qaybi igumay odhan waxay igu dheheen un arrintaa ka waran ma saxbaa. dabeetana wixii saxda ahana waan u sheegay wixii ka qaldanaana waan u sheegay. oo waxa dhacday beri dhexdeer ahayd gabadh ayaa su-aal bay weydiisay waxay igu tidhi habaryartay ayaa dhimatay. markay habaryartay dhimatay wax walaalaa kamay tegin cid ay walaal yihiin may jirin. waxay kaloo igu tidhi aniga walaasheed ayay dhashay oo walaasheedna dee hore ayay dhimato way ka horreysay. waxay kaloo ka tagtay ciyaal ayay dow tahay oo walaalkeed dhalay habliya inamaba. kadibna habliya ayay dada u ahaydna dhaxalkii waxba laga siiyey iyo inamadiiba anigana wax dhaxala layma siina arrintaa ka waran ayay igu tidhi. wadaad baana sidaa nagu yidhi oo sidaa ugu qaybiyey. kadib waxaan ku yidhi arrintaasi sax ma aha dhinac marka laga eego dhinacna waa sax. horta adiga inaan dhaxal lagu siin waa saxoo dee habarwadaagta habaryarta loo yahay waxba ma dhaxasho. laakiin caruurta ama ubadka ayay dada u tahay inamadu way dhaxlayaan se laakiin hablaha dee kolleyba dhaxal looma jaangoyn oo sharcigu umu odhanin way dhaxlayaan kuwa eedada loo yahay. sidaasan markaa ugu jawaabay. marka waxaad ka saartay halkaasumad ka saxday in habluhu ay meel soo galaan? haa halkaasoo kale ay soo geli karaan meelo kale way jirtaa oo ay wax ka dhaxli karaan. waay bulsho badan baa sheekha ugu daawanaysaa maxay tahay fariinta ugu dambaysa ayaad u diraysaa? fariinta ugu dambaysa ee aan u diraya waxa ay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala intay ka cabsadaan ay rabbigoodna aaminaan oo waxyaalaha wanaagga ay doonayaan inay tiigsadaanna ay tiigsadaan iyagoo ilaahayna kaashanaya.
noloshuna markaasi aanay meel u taagnayn isbedel ku imanayo haa ay isbedel keeni karaan aanay meeshii un taagnaan waa ilaahayna aaminaan sheekh Abu Cabaas hadda aabaata soo haa aabaata way daawadayaasheedanu jecelnahay oo intaas waxaan ku soo afbeerinaa barnaamij uu marti noogu ahaa sheekha mucjisada sheekh Abu Cabaas oo markaasi dhawaan magaalada Jigjiga ku soo bandhigay buug uu ka qoray noloshiisa oo markaasi la yiraahdo Derbi Jiif ilaa daaci waxa uu bartay culumta kala duwan ee shariicada islaamka si gaarana cilmiga dhaxalka iyo waliba quraanka kariimka oo uu xaafidul quraan yahay waxyaabaha mucjisada ee sheekhani uu gaar u ah waxa kamid ah in xisaabaad uu leeyahay oo markaasi aayadaha quraanka ama bogoga quraankaba uu ku soo saaro sidoo kale waayihiisa hore nolosha oo mucjisada ay soo bilaabantayna waxa uu ahaa dadkii markaasi saacadaha iyo aaminaada iyo kalsoonida lahaa isagoo markaasi nolol hoose oo derbi jiif ku jirto waxyaabaha lagu xasuusto waxa kamid ah in markaasi saacadaha la weydiiyo isagoo aan saacad sideen oo markaasi intuu cirka eego cadceeda oo markaasi sheegi jiray sheekhaad baan kaaga mahadnaqaynaa barnaamijkeena haye wad mahadsantiin idinkuna inta ku kulmi doono daawadayaal barnaamijkan mid lamid ah waxaan kaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu la soo deg abka shirkadda Super adigoo kala soo degaya Play Store-ka iyo App Store-ka